dadka waxaa ka mida baa ilaahay yidhi kuwa ilaahay dacal ka caabudaya oo haddii wanaagga la helana maca naasa oo khayrkaasi wadaya haddii dhib iyo imtixaanu yimaadiyo mashkiladina dib u laabmaya baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala idan imtixaanaadku way imanayaan mar kastaba dunida imtixaanku waa imanaya waxaana alla imtixaamaa dadka kuwa uguba jeclaa ambiyadii iyo rusushii ayaa imtixaanaadka ugu waaweyne ku dhaca imtixaanka danta laga leeyana waxa weeyaan in la kala saaro alsaadiqiina waalkaadibiin alsaadiqiin fii iimaanihim kuwa iimaankooda ku run sheegaya iyo kuwa ka been sheegaya in la kala saaro idan dadku imtixaan bay ku jiraan fitankaas iyo imtixaankaas fitan duqaad iyo jabaabira ka yimaada niman kibray oo qooqay oo dadka dhiba oo mashaakil u geysta fitan ka yimaada shahwaati nafs iyo shubahaat iyo wixii la nooca fitanku way tiro badan yihiin wuxuu nebigu sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh boqorradii ka horreeyey muslimiinta boqor ka midi inuu lahaa nin wadaada oo kaahina oo u faaliya faalihiisii uu gaboobay markii dambe uu ku yidhi faaliyihii war inan yaroo aqoon-yahana ii keeno aan faalka kuu baro oo inaan dhimanayaabay u muuqataa inan yar la keenay inankii yaraa uu faalka la bari jiray dabeetana waddada uu sii mara unbuu nin wadaadoo raahibo ka helay kiina waxoogaa buu ka dhegaystay kadib ilaahay subxaana wa tacaala raahibka wixii uu u sheegay baa alla ku anfacay maalintii dambea daabadi istaagtay waddadii dadku uu marayey wiilkii yaraa dhagaxintuu qaatay ayuu yidhi maantana arrinkii wadaadka iyo raahibka iyo sixiroolaa kala saaraya dabeetana ilaahay magaciisa intuu u qabsaday buu ku tuuray isagoo le ilaahay hadduu arrinka raahibku xaq yahay ninkaasi bahalkaasi dadka dhibay dhagaxa kan ku dil dhagax buu ku dilay xadiisku waa xadiiska dheer ee sheegayey boqor nin agtiisa fadhiyey inuu indhabeelay yacni maxallu istishaadku maan xadiiska ka tilmaami doona nin agtiisa joogay inuu indhabeelay dabeetana uu maqlay wiil yaroo dadka u duceeyo oo ilaahay ku caafiyaa jira soo raadceeyey wiilkiiyo u yimi markuu u yimi ayuu wuxuu ku yidhi hadiyaddan badanna waan kuu sidaa waxaanan rabaa inaad caafimaad siiso wiilkii wuxuu ku yidhi hadiyaddaadana hayso aniguna wax ma caafimaadiya ilaahay baa wax caafimaadiya haddaad doonayso ilaahay rumee anna waan kuu baryaa alle subxaana wa tacaala alla ha ku caafiye ninkii ilaahay buu rumeeyey wiilkiina alla uu bariyey dabeetana indhihii baa u dilaacay waxbuu arkay wuxuu ku noqday xaashiyadii de boqorku ahaa ee boqorka agtiisii markuu yimi waxau yidhi war indha ayaa kuu saaray oo adigaan wax arkaynini wuxuu yidhi rabbigay awalaka rabbun hayri buu yidhi oo ma midaan aniga ahaynoo rabbigaad rubaysantay baa jira caqliga bini aadamku markuu kibirku ka bato insaanka caqliga caadiga uu ka luma markuu caqliga caadiga lumana waxaa soo baxa qawaaniin afkaar aragtiyo aan xataa fitrada caadiga insaanka waafaqsanayn sida awgeed buu wuxuu ku leeyahay ninkan isagoo og inaanu isba rabbi u ahayn ayuu haddana wuxuu leeyahay walaka rabbun hayri ma midaan aniga ahaynoo rabbiya baad leedahay wuxuu yidhi aniga rabbiga iyo adiga rabbigaaba waa alle subxaana wa tacaala baa inoo wada rabbiya waa la toorjargareeyey ninkii ciddii waxa kugu tidhi keen wiilkii baa la keenay waa la toorjargareeyey ciddii keen wadaadkii raahibkaah baa la keenay wixiiba waa la toorjargareeyey waxaa la yidhi wadaadkii ma ka noqonaysaa diinkanaad haysato may buu ku yidhi madaxaa mishaar laga saaray labaa loo kala gooyey qof nooloo la mishaarinayo qiyaas ilaa iyo intay naftu ka baxayso waxaa la keenay ninkii indhoolaha ahaa waxaa la yidhi ma ka noqonaysaa may buu yidhi waa la mishaariyo labaa loo kala gooyey wiilkii yaraa waxaa la yidhi ma ka noqonaysaa may buu yidhi yacni duqaaddu dadka qooqa waxaanay weli fahmin caqiidadu waxay tahay caqaa'iddu waa shay qalbiga gala xoogguna ma baabi'iyo qofka bini aadamkaa jidhkiisa waad tumi kartaa waad dili kartaa waad garaaci kartaa laakiin qalbigiisa ma hanatid waxa gelaya caqaa'iddu waa wax qalbiga gala saa daraaddeed qofka haddii la jorgareeyo haddii la dilaba waana la dili karaa waana la toorjargarayn karaa laakiin qalbigiisa lama bedelo wuxuu ku yidhi ma ka noqonaysaa may buu yidhi baluu ku daray waxaa la yidhi buurta geeyo ka soo tuura buurtii markii la geeyey ilaahay buu baryey wuxuu yidhi ilaahu kuwa sharkooda iga kaafi buurtii waa gelgelatay intii kale ka daadatay
misna wuu soo noqday isagoo soconaya war miyaad wixii ka noqon kaba noqon mucjisaadka iyo waxaan dhacaya dadku markay kibraan ma arkaan wax kale unbay ku sababeeyaan uma muuqanin ninkan ciidankii dhammaaya lagu daray inaan la halaago isagu uu soo noqday laakiin waxa u muuqato inuu isaga ka takhalluso war doon saara buu yidhi doon baa la saaray badda ku soo rida buu yidhi baddii baa la geeyey ilaahay buu baryay ilaahu kuwan iga kaafi sharkooda buu yidhi waa qallibantay kuwii baa dhintay isagiina waa ka soo badbaaday wiilkii yaraa waa kii akhiiran la weydiiyey yidhi war ma rabtaa inaad i disho sidan aad ku waddo kuma dhimanaye farsama kuu sheegaya kale aniga kanaanadayda tan ama jucbadana wax ku sito kala bax warankayga leebabka bismi illaah rabbi lghulaam dheh magaca alle iyo rabbiga ghulaamka ayaan kuu cuskaday dheh markaas buu mudayaa buu yidhi bahalka kale laakiin dadkao dhan isugu yeedho caynkaa dhi wiilkani wuxuu rabay inuu isagu dhinto ilaahay dartii uu dhinto laakiin dadku iimaan inuu galo waa la isugu yeedhay sidii baa la sameeyey waxaa dhacay markaa wiilkii halkiibuu bahalka kaga dhacay uu dhintay dadkii markay arkeen wiilkii inuu si kale ku dhiman waayey sida tan mooyaane waxay idhahdeen aamanaa birabbi alghulaam rabbiga wiilkan baanu anana rumaynay bay idhaahdeen godad u qoda buu yidhi marka godad baa loo qoday godadka markii loo qoday ee dadka lagu gurayey muu odhan inuun dadka inta godad u qodaan laaya laakiin waxaa la yidhi dadka godad u qoda oo dab ku shida oo ha lagu gubo ciddii ka noqon weyda oo weliba audience ha yeeshaanoo ha la daawado waayo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa id hum calayha qucuud inay dileenoo qura lama tilmaamin fikra saadiya buu qur-aanku tilmaamaya dadkani may ahayn dad wax laynayay oo qura boqorkani wixii ka soo horjeedo qura ma dilin ee wuxuu yidhi toorjar gareeya toorjarkana ha la sawiro dee sawir kale waagaa ma jirin wax lagu sawiriyo kamarad lagu qaado iyo wax kale ma jirin sawirka qura la samayn karaya waxaa in audience loo sameeyo in dad daawado la keeno oo daawado boqorkii iyo wixiiba waa daawadeen ayaa ilaahay leeyay markay gubayeen dadka kale waxaan u soconnaa waxa weeyaan almuslim amaama alfitani waalimtixaanaat maa mawqifu xagguu istaagayaa qofka muslimka marka dhibta tan iyo imtixaanaadkani qabsadaan dadkaasi muslimiinta qur-aanku wuxuu inoo sawirayaa inay ku sabreen